بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay anigoo ku hadlaya guddiga uu madaxweynuhu u saaray dib u eegidda arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee gobolka Mudug anagoo guddiga magaciisa ku hadlaya maantay inaan halkan dadka reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug aan ugu soo bandhigno go'aamo laga gaaray hawlihii naloo idmaday سال ساعتين بمدحوينها دولة بنتلان لا بدي أصدق أسبوع قدام بيسوي خبر شوك شو قبل كم يوم سجى يوفد وجامني وكاكو على بعض القلة وجدد اللي يمنا وحي حيد سيدي قبل كان له ترترجلين له حولها كسعودة هنقط حولها أمنية سجد أمنية أما كوبعين تعريمها بالشدة هي كابياش نقالها انتبه وكهول بأحد وين باكسعودتي قبل كم مدة أيضا madaxweynuhu 12 bishii sideedaad wuxuu soo saaray wareegto uu ku magacaabayo guddiga kan arrimaha bulshada iyo loo xisaaray arrimaha dhaqaalaha inay dib eegid ku sameeyaan muddada ayada intii ka dambeysay guddigu waa shaqeynayay joogta ayuu shaqeynayay waxaan u kurgalnay guud ahaan dhaqaalaha gobolka ilaha dhaqaaluhu ka soo galo gobolka waxaa noo soo baxday in runtii gobolku u baahan yahay in si weyn looga shaqeeyo waxna laga qabto arrimaha ku aadan ururinta cashuuraha iyo hirgelinta nidaamka cashuuraha iyadoo la raacayo sharciga u degan cashuuraha ee dowladda Puntland haddaba markaa guddigu kadib markii uu diraasaad badan uu sameeyey kana baaraan degay dhammaan arrimihii naloo igmaday kadib markaanu eegnay oo iyadana aanu tixgelin siinay in ilaa iyo laga soo bilaabo asaaskii dowladda Puntland 1998 canshuuraha markay noqoto in gobolka kan aan dib loo eegin ama aan qiimeyn lagu sameeyay oo tahay markii ugu horeysay taariikhda hawsha ayada la qabto guddigu wuxuu markaasi runtii soo saaray go'aamo dhowr ah dhammaantood go'aamadaasi waxay iyagoo qoraal ah loo soo gudbinayaa ganacsatada iyo dadka ay khusayso go'aanka koowaad waxa weeyaan marka ugu horeysa waxa go'aan laga gaaray sar u qaadida canshuuraha beriga ama aan idhaahdo guud ahaanba canshuuraha iyo ururintooda iyo gaar ahaan canshuuraha beriga oo gobolka Mudug hadda ka hor aan ka jirin waxaa go'aankan uu qeexayaa dhammaan hawsha ayada wixii quseeya oo ay ka mid yihiin nooca canshuuraha iyo iyadoo la xadidayo ganacsatada kala gedisan canshuuraha ay bixin doonaan marka waa la qaybiyay qoraalkii ganacsatada dhanna waa loo gudbiyay munaasabadan iyada waxaan uga faa'iideysanaynaa inaan dadkeena u sheegno meel ay joogaanba gaar ahaan gobolka Mudug in ay bixiyaan canshuuraha ku waajibay gaar ahaan canshuuraha beriga sidoo kale waxaan rabnaa iyadana inaan u sheegno shirkadaha diyaaradaha kuna wargelino in iyaguna sidoo kale ay bixiyaan canshuuraha laga doonayo inay ay bixiyaan sida ugu dhaqso badan qoraalka aanu soo saarnay ayaa arrimahaas cadeynaya waxaan rabnaa sida ugu dhaqso badan hawshaasi inay u fusho waxaan jeclahay wixii faahfaahina inaan magaranaysa ku wareejiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda laakiin waxaan jeclahay guud ahaan dadkan inaan ku dhiirigeliyo in ay canshuuraha bixiyaan inay u heelanaadaan laanna canshuurtu waxa weeyaan wax adiga lagaa qaadayo oo haddana la doonayo wax lagaa qaadayo in dalkaagii la geliyo dalkaaga aad ku quruxsatay haddii aadan canshuur bixinna amniga lagama shaqeyn karo waxbarasho lagama shaqeyn karo kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada inta midna lagama shaqeyn karo dadkana waxaan ku dhiirigelinayaa guud ahaan wadaninimo iyo inay usoo jeestaan in dalka la dhiso oo aynu isticmaalno waxeena aynu bixino oo aynu gelino waxeena si aynu danteena guud u helno waad mahadsantihiin